markaynu haddaba ka soo hadlay jumladii ismiyada ahayd iyo jumladii ficliyada ahayd waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin iyo waxyaabihii la halmaara waxaan toos u abaaraynaa oo aadaynaa wax loo yaqaano kana wakhwaatuha waxay khuseeyeen hadhow jumlada ismiyada laakiin sidaan ka hor dhicinay tusaalayaasha halkaa inoogu yaala intaanan aanu gudaha u gelin waxaanu tusaale usoo qaadanaynaa amsilo kooban horta marka hore kana wakhwaatuha waxa loo yaqaano waa 13 ficil laakiin halkan 9 ficil oo ah inta muhiimadda bay ku sheegaynaa inta kale axyaanan yacni always marmar weeye marmarka qaar bay noqonaysaa 13 ficil 9 ka mid ah halkan ku xusana waa asbaxa adxa amsa baata saara dalla laysa iyo maazaala iyo sidoo kale kaa ugu dambeeya ee ku qoran tahay maadaama way 13 ficil ama 9 ficil ee halkaa inoo yaala 3 qaybood ayay kala noqon doonaan 3 qaybood ay kala noqon doonaan waxa weeye in ay noqdaan naaqisa inay noqdaan naasikha iyo inay noqdaan sidoo kale waxa loo yaqaano mutasarrifa haddaba maxay kala yihiin taanu gudaha u gelin horta marka ugu horeysa haddii aan tusaale ka bixinno ka ugu horeeyo ah naaqisa berigii hore waddanka Maraykanka oo kale xuquuqdiisu labay ahayd darajo koowaad iyo darajo labaad darajo koowaad iyo darajo labaad sidee yacni laba muwaadiniintu isku xuquuq may ahayn oo imika tusaale ahaan muwaadinka xuquuqda koowaad waxaa la dhahi jiray iyo muwaadinka xuquuqda labaad ninka madowga lagama yaabo inuu xuquuq la noqdo ama la xuquuq ahaado ninka caddaanka oo kale xuquuq bay leeyihiin labadoodu xuquuq bay waddanka ku leeyihiin laakiin maxay kala yihiin xuquuq aanu ninkan madow lahayn buu ka kale caddaanka leeyahay oo dheeriya sidaasoo kale ficilku wuxuu leeyahay xuquuq u leeyahay inuu faacil helo iyo sidoo kale hadduu mafcuul u baahdo way laakiinse haddii laga maarmi karo waxa loo yaqaano mafcuulka iyo faacilkana waa siyada imika tusaale ahaan intasara aljeyshu waxa guulaystay kooxdii intasara waa ficilkii aljeyshuna waa faacilkii wuxuu ka maarmay mafcuulkii sidaasuu naaqis ku noqday waxa lagu leeyahay haddii ficilku uu ka maarmi karo faacil iyo mafcuul bihiba yacni ficil sameeyihii iyo lagu sameeyihiiba waxa loo yaqaanaa ficilka ficil naaqisa way marmarka qaarna way dhici kartaa inuu dee magaranaysa ficilku faacil yeesho mafcuulla lahaan waayo ficilku waxaa dhici karta labadaba inuu waayo sida ficil amar oo kale imika marka la dhaho idrib diraaci marka lagu leeyahay meesha faacil lama yaalo mafcuul lama yaalo idrib waa ficil amar way haddaba haddii aanu hore ugu sii soconno jumlada ismiyada markayn ka soo warramaynay waxaanu soo nidhi inay jumlada ismiyada ay noqonayso keliyaba gebigeeduba ay noqoto mubtada iyo khabar tusaalayaasha halkaa yaala imika addaalimu mujtahidun addabibaani baaricaan almuslimuuna asaadiquuna almu'minaatu cafifaat yaxyabii la mid ah tusaalaha meesha ku yaala waa jumlo ismiya oo jumlada ismiyada waxay ka koobnayd inay mubtada iyo khabar noqoto addaalibu waa mubtada marfuucun bilibtidaa wacalaamatu rafci dama daahira cala aakhirihi mujtahidun wa khabaru الضالب مرفوع بظالب وعلامة رفعه ضم الظاهرة على آخره ومبتدا خبر كل وضع وده ورفع اثنين خبر كوي حكون رفع سيء مبتدون مقرنسا وي أصل كل سورة فعلي حتى ما وحي مبتداها لو يقاني وحا وسب الدليا اسمه كان لا يقانو ما دامه كان واخواته حقه اللي قال لي كان اخواته اللي هو شيء جملة اسمية ده حقه اللي قال لي سادرت مبتدي مقع كلو يالانيا حكم كلو يالانيا magaca uu yeelanayo kow waa inuu ismu kaana lagu waco waa talabaad khabarkiina muxuu yeelanayaa khabaru kaana lagu wacaya say khabarku waa khabarkiisa laakiin wuxuu marka hore khabaru almubtada uu ahaa laakiin ko wuxuu noqonayaa khabaru kaana mubtadiina wuxuu noqonayaa ismu kaana halka horena maxaa laga gelinaya kaana waa akhwaatiheeda mid kamida kaana tusaale hal laga geli maxay noqonaysaa kaana daalimu mujtahidan ardaygii wuxuu ahaa mid dadaala haddaba marka laga yimaado isbedelka ku dhacaya xukun ahaan way isbedelayaan macal oo mubtada iyo khabarkii labadoodu horta marka ugu horeysa asalkii waxay ahayn marfuuc laakiin se imka xaaladdu way isbedelaysayo mubtadaha waa la rafcinayaa khabarkana waa la nasbinayaa calaa annahuma inay yihiin baa loo rafcinayaa kaana oo kaana isimkeeda waa la rafciyaa mubtada baana booskeedii ku jira
kaana khabarkeeda waa la nasbiyaa booskeediina waxaa ku jira mujtahidan daalibu mujtahidun bay ahayd sooma kaana daalibu mujtahidan kaana daalibu mujtahidan marka addaalibu maadaama uu mubtada marfuuc bidama calaamat rafci dama daahira calaa aakhirihi liannahu mubtada ومجتهد خبر ظالم مرفوع بالضمة علامة رفع ضمة ظاهر على آخره halka hore marka kaana laga geliyo halka dambe suuraysa markiiba fadxe sababtoo ah kaana khabarkeeda waa inuu nasbisan yahay oo kaana nasbinaysa xaaladii way bedelaysa iyada xaaladii bedelaysa way marka waxa loo yaqaano waa naasikha ficilka marka naaqis ku dhaco saddexdaad su'aalaha soo qaadnay naaqiska markuu yahay waa marka uu bilaa ficil walaa faacil yahay laakiinse marka uu xaaladdu ay taagan tahay in mubtadihii ama jumladii ismiyada ahayd xagga hore laga geliyo kaana iyo akhwaadkeeda kabacdina sidaa lagu waayo xukunkeedii oo ay isu bedesho daalib ismu kaana mujtahidna khabaru kaana isu bedesho oo mubtadihiina noqdo mid rafcisan khabarkiina noqdo mid nasbisan xaaladaas marka la taagan yahay sheekadu maxay isu bedelaysaa xaaladdaa marka la taagan yahay sheekadu waxay isu bedelaysaa inay naasikho tahay oo dee waxaan markaa jumlo ismiye ahayne dee waxay isu bedelayaan nawaasikh way isu bedelayaanoo jumladooda jumlo ficliya bay noqonaysa imika kaana wanigina dee 13 ficil wey 13kii ficil marka jumladii ismiyada xagga hore loo geeyo ay xukunkeedu qaataan dee ficil bay isu bedelayaan marka koowaad waxaad ogaataa waxa loo yaqaano naaqisa inaan ka soo warannay ficilku markuu naaqis yahay waxa weeye waa marka bilaa faacil walaa mafcuul yahay naasikh markuu yahay waa marka kaana akhwaatuha oo kan casharkeenu ku saabsan yahay aynu ka gelina xagga hore imika tusaalaha labaad addabiibaani baaricaan bay ahayd xaaladdu way isbedelaysaa asbaxa haddii halkan hore ka gelino oo dee kaana akhwaatuha walaalkeen mid ka mid ah asbaxa addabiibaani baaricaan mubtadaha khabar bay ahayd imika maxay noqonayaan asbaxa waa ficilkii ترفع الاسم وتنصب الخبر الضبيباني وحوي واسم أصبح مرفوع وعلامة رفعه بالألف نيابة عن الضمة ومثناها مركز ليتشوغو حالة رفعه وحكا نيابي حي أما بوسكي بحنية الضمة ده باري عيني ما داموا اللي خبر كوال نسبسن هي باري عيني وحوي وخبر أصبح منصوب بالياء وعلام يألا ساون وأخبوسكي نسبة وجهته oo ma garanaysaa marka musanaha la joogo ee xaalatu nisbe la joogana waxa lagu nasbin jiray ya baahed sidaa darteed qasab waxa in la helo wax ka naaciba shaygii asalka hadii aan ma garanaysaa aanu asal aanu marka lagu rafcin oo musanaha wax loo yaqaan marka xaalatu rafcin la joogana waxa lagu rafciyaa alif marka xaalatu nisbe la joogana waxa lagu nasbiyaa leeyahay inta inaad ila fahantaan Kenya marka asbaxa dabiibani baaricaan way noqonaysaa sheekada isbedelaysa marka hore labadooda alif baa ku taagnaa maadaamay mubtadaha khabarku rafcisnaayeen imika laakiinse mubtadii baa rafcisan addabiibaan aliftaasa baaricaanina waxa weeye maadaama nisbisan yahay adaasa booskii nisbada u jirta salaad saddexaad mubtada marfuuc bilwaaw khabar marfuuc bilwaaw baata haddii aan halkan hore ka gelino maadaama labadooda marka hore mubtada ahaayeen waxay noqonaysaa baata almuslimuuna مسلمون صادقين oo imika halkaas waxay isu bedelaysaa wowdaas waxay isu bedelaysaa ya wowdaas waxay ka turjumaysaa waxa weeye jamcu mudakar saalim xaalad rafci marka la joogo waxa lagu rafciyaa wow sidaa darteed marka xaaladdu isbedesho ee la imaado in kaana akhwaatu xagga hore laga geliyo oo aynu baata gelino saadiqayni way isbedelaysaa waxay isu bedelaysaa ya wowdii dabadna maxay noqonaysaa baata waxa weeye waa naasikhi ama waa ficilkii ترفع الاسم المسلمون مرفوع بالواو علامة رفع الواو ظاهرة على آخره صادقين وحوي waxay ka hadlaysaa khabarkii inay tahay baata waxaana lagu nasbiyay ka ku sii waxa weeye saara almu'minaatu cafiifaat khara baata marka ugu horeysa waxa weeye uu ku sugnaaday waxaan dhan isku macno isoo dhudhoobay kaana waa hada asbaxa waa hada baata waa uu ku sugnaaday saara saasay ahayd marka ugu horeysa kaana akhwaatu dhammaantood inta dambe mooyaane oo macnahooda aan u tagi doono way war hadal dhamaadkii saara almu'minaatu cafiifaat iyaguna tusaalahoodu wuxuu noqonayaa inuu almu'minaat ismu saara noqdo inay marfuuc yihiin bidama daahira cala aakhirihim cafiifaat inay yihiin khabaru saara
sidoo kalena ay ku magaranaysaa nisbisan yihiin kasre maadaama ay jamcu muannas saalim yihiin. Jamcu muannas saalimka xaaladan isma marka la joogo kasraa lagu nisbinaya saa darteed cafifaatin kasradaas ayada loo deynaya. ka ugu dambeeya alasdiqaa'u awfiya alasdiqaa'u waa mubtada marfuuc bidama daahira calaa aakhirihi awfiyana waxa weeye waa khabaru asdiqaa marfuuc bidama daahira calaa aakhirihi bay ahayd alasdiqaa'u awfiyaa'un marka halka hore aan ka gelino kaana wakhwatu aan idhaahdo dhalla alasdiqaa'u awfiyaa'an dhalla alasdiqaa'u awfiyaa'an bay noqonaysaa alasdiqaa'u ismu kaana ismu dalla marfuuc bidalla وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره ويسبدلسها مارد أوفياء حالة يدير ويسبدلسها أو سيدا اسمها محل وصارية فتحة وحلنا يظل الأصدقاء أوفياء وخبر ضل منصوب بضلة وعلامة نسبه فتحة ظاهرة على آخره صح وي هذا وحن الناقص مركا لقاها الله يفعل كناقص كا وكأه بلا فاعل أما بلا مفعول ناسخ marka leenahay waxa weeye khabarkii way isbedelaya maadaama la rafciyo mubtadaha khabarka naasikhada xukunkii khabarka isbedelaya oo khabarkii rafca lagu talagalay maxay isu bedelaya wixii isu bedelaya in la nasbiyo waa duduubka hadal mubtadaha iyo khabarku in la rafciyo asal lahayd laakiinse maxaa dhacday khabarkii xaaladda way isbedelaysaa isaga waa la nasbinayaa iyagoo si guud ay isu bedelayaanba marka horeba ismu kaana iyo khabaru kaana ay kala noqonayaan ama ismu asbaxa iyo khabaru asbaxa ay noqonayaan ama ismu amsa iyo khabaru amsa noqonayaan xukunkii haddana si guud keliga ahaa inay la rafciyo way isbedelaysaa khabarkii baa ka dhex baxaya oo wuxuu isu bedelaya waxa loo yaqaano in loo bedelo in la nasbiyo waay haddaba nuxurka hadalka marka intaa laga imaado inaad ila fahanteen baan rajaynayaa ficilka afcaasha ama naaqis ay noqdaan ama waxay noqdaan wax loo yaqaano naasikha ama mutasarrifa hadalka waxaan ku soo koobnay iminka inay naaqisana ka soo warannay naasikhana ka soo warannay naaqisadu waa ficil aan faacil u baahnayn walaa mafcuulna u baahnayn naasikhadu waa maxay naasikhadu waxa weeye jumlo ismiya oo mubtadaha khabar ka kooban inaan halka hore kaana akhwaatu ka gelino laakiin xaaladdu ay suur rogto in khabarkii la nasbiyo way haddaba kelmadda waxa loo yaqaano haddaynu u gudubno mutasarrifa waxa loogala jeedo maadaama labadaa ka soo hareen mutasarrifa waxa loogala jeedo wax kale ma aha zamanada siiqa ahaan zamanada sida lagu dhawaaqayay noqonaysa oo iminka naaqisay naasikha markaan ka soo hadlaynay xaaladahaasoo dhan waxaan kaga hadlaynay wax tagayo maadiya kaana waxaa ficil maadiya asbax waxaa ficil maadiya daxa waxaa ficil maadiya mutasarrifada marka la joogo waxa loogala jeedaa in saddexdii zaman baa la noqon karo saddexda zaman maxay ahayn baasti maadi mudaaric future iyo amarkii dee way saddexdaa haddaba ayuu tusaalayaal ku bixinaa iminka addaalimu mujtahida mubtadahi khabar buu ahaa kaana xagga hore laga gelin iminkana maxaa laga gelinayaa dee wax siiqa mudaarica laga gelinaya yakuunu daalimu mujtahidan isla xukunkii weeye waxay ku kala duwan laakiin dee inay siiqadii kala yihiin yakuun waxa weeye dee ficilka naasikha addaalibu wakaa uu rafciyey isimkiisa mujtahidan uu nasbiyey khabarkiisa يصبح الضبيبان بارعين يصبح فعل وين مضارع ونقونيا الضبيبان اسمه كان اسم يصبحان لا مرفوع علامة رفع نيابة عن الضمة بارعين وخبر يصبح بحكم نسبيتين هي سيدا سو كله in siiqa lagu yeero marka kalena amara maadaama damaadii ka soo wada oranay oo kun la dhaho ama sir sida caadiga haddii waxa loo yaqaan waxa la yiri haddii maadiga shay maadi ahaa uu ku imaado siiqa amara waxa qasaba isimkiisa inuu u qarsoonaado badan oo imka kun mujtahidan markan yaano kun marka tiraado waa siiqadii amarka markan ku soo warinayna weeyaa kaana khawatwa kun mujtahidan haddaan dhaho waxa maqan meesha isimkii marka waxaad fahmi kartaa kun ya maxamadu mujtahidan sir cafifan isimku qarsooyi amarkii maxaa meesha muuqdan khabarka waa si toos ah loo yi inta marka in maano siiqooyinka naasikhadii naaqisadii iyo mutasarrifadii fahanay laba tanbiih ama laba malxuud laysa la ya'ti minha mudaari'un aw amrun waxa la yiri kana wa akhwatuha kuma imaado wax loo yaqaano marka la joogo laysa
laysa waxay ka tirsaneed kaana wa akhwaatuha marka laysa waxa uu leeyahay kuma imaado yada siiqa mudaarica walaa siiqa amara inaad siiqada ay la fahanteen baan rajaynaya maanta bay marka hore kaana wa akhwaatuha siiqadoodu ahayd laakiin imika waxa la yidhi siiqa mudaarica amara kuma soo aroori karto laysa sidoo kale damiir kasta oo la xidhiidha bidkaana wa akhwaatuha waxa la iraabaya inuu isimkiisii yahay tusaale kaanuu mukhlisiina baa lagu kaanuu waxa la socda wow oo ah damiir meeshana kaana isim lama joogo sidaa darteed wowgaas wuxuu noqonayaa ismu kaana waxaan odhanayaa kaana waa dee tii naasiqada ahayd tansibu isma tarfacu lkhabara tarfacu isma tarfacu isma wa tansibu lkhabara wowgu waa maxay waa damiir laakiin wuxuu noqonayaa ismu kaana marfuuc bikaana calaamatu rafci alwow niyabata can dama waa la odhanaya kaanuu mukhlisiina khabaru kaana ya'daasaana magaranaysaa ayay nasbinaysaa sidoo kale kuntu musliman ta'daasaa booskii damiirka ku jirta ismu kaana noqonaysaa kaana almuslimayni kaanaa muslimayni imikan maxaa ku jirta aliftaasaa ku jirta waaye inaad fahateen baan rajaynaya waxa loo yaqaano kaana akhwaatuha waxa ka tirsan waxa loo yaqaano laysa siiqa mudaarica walaa amra midna kuma timaado sidoo kale damiir kasta oo la xidhiidha kaanay walaalaheed waxay gelaysaa booskii isimka oo de kaanaya walaalaheed waxay qasaba inay helaan asmaa waaye intaa marka haddaba ka imaado waxaynu toos haddana u gelaynaa in yaroo tusaale kale maxamedun kaana mujtahidan marka lagu leeyahay waxaa dhici karta marmarka qaar baa la yidhi inuu mustatir noqdo isimkeeduba toos mustatir u noqdo imika waxa lagu yidhi maxamedun kaana mujtahidan waa khabaru kaana waan fahanay kaanana da waa iyadii dee meeyey isimkeedii maaragta mustatir buu sideeda u noqon karaa marka hore waxaan ka hadlaynay in damiir kastoo si toosa ula xidhiidha isimkeedu noqonaya laakiin iyadoo baashi dhammaystiran tahay waa haddana sideeda caadiyan mar kasta wuxuu noqon karaa in marmarka qaar ay dhici karto in waxa loo yaqaano mustatir uu noqdo isimkeeda oo la dhaho maxamedun kaana mujtahidan oo mujtahidan uu noqdo khabaru kaana isimkina meesha saa kaga dhex baxo dabeetana isimkii ay noqoto in la doono in si wacan lai fahmaa rajaynaya